الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد سود هذا ولا رياش قلبك يكشكي لابتو وحن مقالك دليك ورمينا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هل كي أينو جوكتينا أينو كسب بلابننا بإذن الله تبارك وتعالى وحن كصور النقي قيبتي كهر رسي nimankii Quraysheed iyo Nabiga sallallahu alayhi wasallam in ay magaranaysaa dhinac kasta ay kaga adkaan kari waayeen haday tahay dhanka xaqa haday tahay dhan kasta in ay Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxba kaga qaadi kari waayeen hadda waxay go'aansadeen Nabiga sallallahu alayhi wasallam in ay dhibaan Soomaaliya halkaas halku dhashay ayaan ku joojinay aheedo joogsi aynu saarnay hadda leen cusub ayaan si bilaabanaa insha Allah tabaaraka wa taala oo halkaas aynu ka sii anbaqaadinaa nimankii Quraysheed nabiga dhinac kasta way kaga adkaan kari waayeen waxay bilaabeen hadda inay dhibaan halkii ka soo galayaan dhanka dumarka daciifnimadooda rag ma soo qaabili karayaan waayo dood meesha kuma nabiga kaga ma badin karayaan sallallahu alayhi wasallam xaq haduu meesha yimaadada nabiga isagaaba xaq wata hogaannimadiisa wanaagsan sabirkiisa dhinac ay kaga badin karayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam kaga guulisan karayaan male marka waa inay dhanka dumarka iyo ciyaalka soo maraan gaal xilli kastuu joogo waa gaal xilligan aynu joogna xitaa Suuriya waxa ka dhacaya si wanaagsan aynu uga warhaynaa Soomaha dumarka maatida ciyaalka waxyaabaha si gaaladu ma garanaysaa ay baabiinayaan subhanallah Soomaha waxa jirtay nabiga sallallahu alayhi wasallam markii soo qaabili kari waayeen in ay dumarka ma garanaysaa dhankooda ay ka soo galaan فرعون بالإيجا فرعون محو سمين شري محو رهاي نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم دمر كودا إسكدايا لكن سعيال كدلنا يا دلا كوكسية ويلاش الشعورن كوكسية صوبتو محو كعبسني أود أولها لعق وهيستي دقالة وهيستي عيدا وهيستي محو كعبسني إن أهلوي الكردشو ريبني إسرائيل وإساقبه الفها أتاقا ragga ayuu ka cabsanay dumarka iska daaya buu dhahay ragga ma garanaysaa kawkasiya waxaanina dhashaba kawkasiya subhanallah eega gal xilli kastuu jooga ama kuwii hore ama kuwii xilliga nabiga ama kuwa hadanba waa daciif waa wax ma garatay fikir male aqeeda meesha kuma hayo xaq meesha kuma hayo kulama doodi karayo haddana wuxuu isku dayaa kaliyaata inuu dhanka dumarka iyo daciifnimadooda ma garanaysaa meelahaas ay ku soo wareegeystaan iyo sixir iyo waxyaabahan toos kuma soo abaari karayaan futada intaas leeg subhanallah yaani waa fulay baan ka wada futada intaas leeg subhanallah waxaan u sheegayaa dumarka walaalahaya kuwa ila dhashay kuwana ila dhalan dumarka muslimiinta oo dhan waxa u sheegayaa diintana qiimo ay idin siisay war qofkii ugu horeeyay كوسو النبي محمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قعن دمر أي كوسو إسلام يا صووها إنه صو إسلامه قف دمر يا صووه هيد إنه صو إسلامه أوكي أنا كسو حمزة أسد الله رضي الله عنه نبي قادركي صلى الله عليه وسلم يا صووها إنه صو إسلامه قف دمر يا صووه هيد إنه صو إسلامه سبحان الله سماهن أوكي qiimahaas ay diintu siisay dumarka subhanallah waa faanteen Soomaha qiimahaas ay naftooda ay xitaa u horeen dumarku ma garanaysaa diinta islaamka oo mataqaana Sumaya oo inuu wada garanaynaa Soomaha gabadhii ugu horeysay ee shahiiday gabadh bay ahayd subhanallah waxaana ahayd isla gabadhii ugu horeysay ee iyadoo adoona la iska leeyahay diinteeda banaanka u soo saartay tiri aniga waxaan ahay qof muslim ayaan ahay qof islaam ayaan ahay subhanallah gabadhii hore ugu horeysay qiratay isla iyada ayay ahayd Soomahayn subhanallah dadkaasi naftooda ay diinta u horreeyeen si ma garanaysaa diinta u istaagto ay rabeen in xitaa naftooda ay ku waayaan in ma taqaanaayay ay naftooda u horan xitaa naftooda ku waayaan in ilaa intii diintu ka istaagayso ay ma garanaysaa xaq ku taagnaadaan Soomaaliya waxay dhihi karaysay iyadoo ma garanaysaa qalbiga diinteeda ku haysata waxay dhihi karaysay inuu gaal baan ahay waxaan caabudaa ma garanaysaa laata wal uzza ba way dhihi karaysay waayo diinteeno ma garanaysaa waxyaabaha qaar markay ma garanaysaa imaadaan
waxyaabihii xaaraanta ahaa ayaa kuu noqonaya xalaal subxaan allah fududayn ayaa jirta subxaan allah diinteenoo dhan waa fududayn waa nasteex way dhihi karaysay gaal baan ahay iyadoo qalbigeeda mutma'in uu ku yahay iimaanku subxaan allah laakiin samaynin waxay ka doorbiday inay diinta awgeed u dhimato waxay ka doorbiday inay xaqa ma garanaysa ay ku taagnaato waxay ka doorbiday iyadoo addoon ah in ay dhimato haba dhimato nafteeda ha ku weydo ma garanaysaa in ma garanaysaa xaqa markasta ku taagnaato subxaan allah dumarkeenna maantana bal u fiirso waxaa lagu kari laayay abbaayo salaada u soo kac salaadii subax baa la joogaa abbaayo filmadan iyo waxaan iska daa abbaayo ma garanaysaa iska daa raggan aad bannaanka la aadayso abbaayo is asturo bal xijaab xidho abbaayo bal ilaahay ka cabso abbaayo qur'aanka baro ayaa laga kari laayay maa laysbarbar dhigi karayaa labadaas dumar marka hadda dumarka maanta iyo dumarkaas ma laysbar waxaa laga yaabaa inaad leedahay nagala tagniyo waxaan waxba kuma dhex waxaa rabtaad noo sheegaysaa inaad idhaayaysaa laga yaaba soo maa dadkaasi nebiga sala allahu alayh wasalam ayay arkayeen soo maaha cumayr radia allahu canh nin taajira ayuu ahaa lacag haysta hanti haysta maal haysta wax kasta haysta subxaan allah qiimo iyo sharaf ku dhexle quraysh hooyadii ayaa xidhay 3 sano ayuu u xidhnaa hooyadii oo nebiga sal alla alay wasalam wejigiisa laga qariyey haddana 3 sano intuu xidhnaa afkiisa wax kale lagama haynin waxaanan ka ahayn ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah waxaad dhahaysaa markaa nebiga ay arkayeen 3 sano nebiga munan arkayno uu xidhnaa haddana afkiisa lagama haynin waxaanan shahaadateynka ka ahayn subxaan allah haye way garaacday hooyadii way cadibtay cuntadii bay ka goysay dhar inuu xidhay ka goysay cusub inaa loo xidho dhar cusub inaa loo xidhay ka goysay cuntada intay ku noolaanaya safrada iskaga dilaya keliyata ayaa la siin jiray subxaan allah cadibaad nooc kasta ayay marisay way garaacday ma garanaysaa shaabuug ul bay la dhici jirtay subxaan allah maalin kasta 3 sano haddana afkiisa wax kale lagama haynin laa ilaaha ila allah muxammedan rasuulullah mooyaane subxaan allah maxaa dhacday waxaa dhacday ma garanaysaa inay maalintii dambe go'aansato in ay bannaanka u soo saarto oo ma garanaysaa bannaanka ay kow kaga siiso dumar badan ayaa jira oo dumarkaasi ma garanaysaa ummu cumayr dumar badan oo qisooyinkooda ay noo imaan doonaan oo la cadibay subxaan allah oo loo cadibay diintan awgeed subxaan allah oo qaarkood suu abujahal u cadibayey indhaha ay ku beeleen subxaan allah indhaha ay ku beeleen waxaynu maraynay cumayr hooyadii intii markii dambe waxay samaysay addoommadeedii bay u yeedhay waxay ku tiri ii soo bixiya intaad ii xidhxidhaan bannaanka suuqa igu soo wareejiya ulna ii keena ma garanaysaa shaabuug waa loo keenay suuqay lasoo dhex martay iyadoo garaacaysa bagacda ku haysa bagac subxaan allah nin aanan reema ka ahayn baa magaaladii maka soo galay oo wuxuu arkay islaantan dilaysa inankan wuxuu dhahay maxay ku haysataa islaantan wiilkan yar ee ma garanaysaa dhalinyarada ah maxaa lagu dhahay waxaa lagu dhahay waa hooyadii oo way dilaysaa oo maxay u dilaysaa diinteedii buu ka baxay diintii aabayaashii buu ka baxay sidaa awgeed way dilaysaa inay disho weeyaan ay garaacdo subxaan allah oo dee waaba islaan da'e mayace muuba iskugu hoos dhufto oo ilaah uu kaga siiyo ya ayuu dhahay moogtahay markaasaa lagu dhahay nay diintiisa ayaanan faraynin in uu waalidiintii ma garanaysaa ku afceliyo ama waalidiintii in uu mataqaanaayey ku noqdo caaq subxaan allah subxaan allah imisaynu waalidiintan ku afcelinaa imisaynu waalidiintan ma garanaysaa aflagaadiinaa caynaa nagala tagaan ku dhahnaa ayadee aan ku dhahnaa markay wax noo dirsadaan aan diidnaa markay habixi nagu dhahaan aan amar diidaynaa markay ma garanaysaa danteenna inoo wadaan aynu ma garanaysaa ka soo horjeesanaa markay nala talinayaan aynu dhibsannaa hadalkooda xitaa subxaan allah war ilaahay kaga baqa waalidiintiin inta ay nool yihiin ka faa'iidayso waalidiinta inta ay nool yihiin ka faa'iidayso haddii ay dhintaan adii iyaga oo ku cadhaysani wallaahi waad khasaartay adduunyana kuwaad adigu dhali doonta ayaa kaaga jarayaa aakhirana ilaahay baa ku cadhaysan sababtoo ah rida rab rada alwaalidayn haddaa rabto inuu alle kaa raalli noqdo waalidiinta raalli geli wa sakhata rab sakhata alwaalidayn haddii aad rabto inuu ilaahay ku cadhoodana waalidiinta cadhogeli waayo cadhadii waalidkii cadhadii ilaahay ayaa isku xidhan raalli ahaanshihii ilaahay raalli ahaanshihii waalidkana way isku xidhan yihiin subxaan allah
waalidiinta haddii ay dhinteenna allah ha u naxariisto u sadaqee xajka haddii adinka aad istikfaar badan ilaahay u weydiiyey masaajidya la dhisayo magaranaysaa sadaqa ahaan ugu dar iyaga awgood u soconaysa magaranaysaa ilaa maalinta qiyaamaha waxay asxaanfalkoodii kaama dhammaan xitaa hadday dhinteen inaad u ducayso waxyaabahaasoo dhan iyo waxyaabo kaloo badan aad u samayso ayaa magaranaysaa lagaaga fadhiyaa waalidka wallaahi ducadooduna way dhacdaayo waa duco oo qofka ay u duceeyaan waalidku wallaahi heer adduunya heer aakhira buu u gaadhaa qofka ay habaaraan waalidiintuna wallaahi adduunya aakhiraba uu khasaaray marka waalidka aynu ilaalino halkaas ayaan ku joojinaa muuqaalku dhalay insha allahu tabaaraka watacaala halkaas halku dhashay ayaynu kasii bilaabinaa kan inoo xigi doonaa ilaahay dartii baan idiin jecelahay muuqaalkan u gudbiya walaalihiina kale si ay uga faa'iidaystaan taageerada kala duwanna hanaga ilaawina allah idin sharfo allah idin xifdiyo hore u socda ku saliya nebiga xilligay idiin tahay hadda xilligay idiin tahay oo saani garaysan asalaamu calaykum waraxmat ullah